إلهي نشرفه أنتي سوق مقابسنا وما هذا علنا runtii haddii Soomaali ay isu timaado in mararka oo kale ato sidaan la isugu yimaado la wada hadlo danteena ku jirta maxaa yeelay geedi baan nahay geeska Afrika ayay Soomaali ku noosho horumar badan ka wadaa inay mararka qaarkood wadamada sida Kenya oo lagu wada dhan yahay la isugu yimaado la isku xog waraysto maslaxadooda ayaa ku jirta waxaan rabaa runtii halka intii ka hadashay inaan uga mahad celiyo isbedelka Soomaalidu ay sameynaysay 30 sano u dambeeyay waxa la oran karaa horumar la taaban karo oo aad u ballaaran laakiin dhantaalan inta dawladii xudunta u ahay dadka Soomaaliyeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay wiiqan tahay marka Soomaalida Kenya ku nool iyo kuwa Ethiopia ku nool iyo kuwa meelka Djibouti joogaba iyo kuwa dibadaha ee caalamka jiraba waxba ka kala dhiman inta dagaankii asalka u ahaa dadka Soomaaliyeed ee magac ahaan dawladda Soomaaliyeed ahaa uu sida hadda uu yahay 30 sano ayaa dalkii wili meeshii la rabay uusan joogin dabcan dalkiina waa jira dadkiina waa joogaan waxa dadka Soomaaliyeed ka maqan waa system baa burburay mararka la hadlayo waxa laga hadlaa qof madaxa iyo qof bedelaya iyo qof baa lagu warbaraysa iyo qabiil bedelaya waxa naga maqan waa system waa dawlad waa nidaam cidii doonta ha maamusho Soomaali hadday hesho nidaam fadhiya waxaan la mid noqonaynaa sida dawladaha kan fadhiya ee Kenya tusaalaha u tahay oo doorashadii u dambeeyay aad goob jooga u haydeen waxa isbedelaya waa madaxda laakiin systemka ma guuro laakiin anaga waad ogtihiino markii qof yimaadaba in baa la tagta markii mid yimaadana in baa iskala soo gasha waxa keenaya waa system la'aanta in Puntland ee runtii Soomaaliya inteeda kaleeto inta is ogol oo federaalka Soomaaliya ogol markii ugu horeysay oo nidaam dimuqraadiyo doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo Puntland bay ka dhacday 3 degmo oo tijaabo ah baa dhacay runtii isbedel weyn ayay Soomaaliya u horseeday arintaas maxaa yeelay furaha dadka Soomaaliyeed la la'aa waxay ahayd sidee madaxda dadkan hogaaminaysa ku imaanaysa marba wixii laga fursan waayaa la yeelay wixii laga fursan waayay waxa la lahaa marxalad baa loo gudbaya maraaxish baa ku dheeraatay habka hadda nidaamka lagu soo xulo madaxdeena waad aragtaan waad ogtihiin kuwa hadda Kenya iyo dawladaha kale siday ku yimaadaan oo Yusuf nagala joogana waad ogtihiin qofku wuxuu accountable noqonayaa ama mas'uuliyad dareemaya ama la xisaabtami karaa markay dadkiisu doortaan laakiin markuu si qarsoodi ah ama dad yar oo kooban ay wax siiyaan waxa weeye wad garan kartaan waxa ka dhalan kara marka horta waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay u fakaraan war 30 sano maxaa maqan intaas waa la isdooranayay carta laga soo bilaabo intaas oo madaxweynaha la dooranayay intaas oo baarlamaana imaanayay labadii heer marxaladood u dambeysana intaas oo senator baa yimid Puntland aniga madaxweynihii lixaad baan ahay oo soo maray intaas oo baarlamaan ah soo martay 5 baarlamaan oo kala duwan haddana qayradu waa badan inta wax la tabanaya marka sirta meesha ku jirta waxa weeye systemka aan isku dooranayna hadaynu horumarin oo dalkeenu uusan yeelan nidaam dawladeed oo law and order-kii iyo law enforcement-kii uusan dhicin dad badan oo hadda halka jooga oo maalin walba Kenya waa loo soo guuraya qofku markuu xoogaa wax isku dareemaba Soomaaliya hantidiisa waa la soo cararaya maxaa keenaya nidaamkii sharciga iyo kala dambeyntii la isku haleynaya meesha ka maqan hay-adihii dawladda dhisnay kaabayaashii dhaqaalahan dhisnayn kuwii amnigan dhisnayn marka horta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed fariinteedu waxa weeye inaan madax noqono macna noo sameeymaysa haddaan nidaamkii aan ku shaqeyn lahayn aan haysan qofkii noqdaa dareemi kara dhibaatada ay leedahay culayska ay leedahay marka horta Soomaali waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed maanta halka joogtay inta ay maqlayso
qofka halka jooga ama dibadaha jooga miyir iyo deganaansho oo isagu wax naftiisa wax ugu qaban karo cidka wax ka maqan wax ugu qaban karo leeyahay laakiin dadkeena Soomaaliya jooga maanta waad ogtihiin labadii ilaahay laga magan gali jiraa dadka alla ku ibtileeyay abaar iyo colaad labaduba annagu aan sababnay dhirtii waa la jaray nabaad guur baa dalka ka dhacay deegaanada haddii qaybta roob ka da'an qaybta kale uma gudubto colaadaha hareeyay wax horumar lama samayn karo hantidii Soomaaliyeed markii halkaas lagu camiri waayay waxay ka liftay in dalalka adduunka maalinba meel la aado waxa fariintayda muhiimka ah ay tahay jaaliyada reer Kenya dadka ugu dhow ee kulaala Soomaaliya ay gacantoodu dhaqsada u gaari kartaa ka mid yihiin idinka iyo jaaliyadaha Itoobiya ku dhaqan waxa la rabaa dadkii Soomaaliya in loo gurmado waxa loogu baahan yahay in loogu gurmado in dalkii dib loo dhisaa la rabaa lama canaanan kara ganacsatada oo lama dhihi karo hantidiina geliya haddaan nidaamkii siyaasiga iyo amniga ilaalinaya uusan jirin waxaan rajaynayaa marka koowaad dalkan aad joogtaan oo namarti geliyay oo qaybtiina say martida u ahayeen citizenka ka noqotay oo degtay horta ilaalintiisa iyo nabadiisa iyo horumarkiisa inaad ka wada shaqeysaan oo kala shaqeysaan madaxda Kenya waa muhiim marka xiga dadkii iyo dalkii aad ka timaadeen inaydan ilaawina gacan aasiisaan oo ugu horeyso inaad ka qayb qaadataan dagaalka hadda lagu jiro argagixisada oo u diiday dadkii Soomaaliyeed har iyo hoy waad ogtihiin Soomaali meel kasta ay joogto waxay diyaar u tahay dulliga hadda habsaday in iska qaado waxaana sabab u ah khilaafaadka badan ee dhexdooda ka jiray waad ogtihiin markii dalkii burburay oo hadda xildhibaanku ka sheekeynay inta uu maray qof kasta oo Soomaaliya oo xilliga jira dhalinyarada gadaashooda dhalatay marka laga tago wadadaas ay wada mareen maxaa yeelay hal mar baa nidaamkii dhisnaa uu dumay qof walba wuxuu meeshu nafta ula carri karo aaday waad ogtihiin oo dhulal aanan weligood la maqal baa xataa mararka qaarkood waxaa arkaysaa hadda waagu Yuusuf jooga idaacadaha BBC da aad loo dhageysan jiray hadda waxaa maanta Facebook waa la dhageystay meelo aad weliga maqal baa qof Soomaali ku nool ka soo sheekeynaa arkaysa oo naf geysay soo orday maanta alxamdulillah isbedel baa jira soo kabasha jirta dadkii qabyaaladii iyo wixii isku leeynayeen waa ay ka gudbeen qof dad magaca qabiilka ku adeeganayo oo kaligiis raba inuu noolaado ayaa muddo badan wareeriyay niman markii horeeto dadka u sheegay inay dulliga iyo dadka qabyaalada iyo ay ka baabi'inayaan oo wadaad sheegtaa meelihii yimid abeesooyin bay ku noqdeen wax kale ay isu bedeleen wax dadkii aan la yaabaneen ka xishoon jireen baa hadda laga xisho qoor la jarayo carruur yar yar oo la dilayo ummad dhan oo iska nool oo hadda tii u dambeysay 29 October ka dhacday ee Muqdisho ummad dhan oo meel iska dhaqan oo cid walba leh carruur iyo caamo iyo dad masaakiin ah hal mar qarax la tagay masaa'ibka socda runtii haddayna wax ka qaban oon iska eegano waa dhibaato fariinteed ugu muhiimsan waxa weeye inaad gacan ka geysataan in nidaamka dawladnimada la adkeeyo nabadda laga shaqeeyo cid kasta oo nabadda ka soo horjeeda ama mid ku dhow ha noqdo ama mid dheer gacan laga geysto dawladda ama heer federaal ahaato ama isteedyada ku howlan hadda in ay meelihii ay gacanta ku hayeen nimanka al-shabaab ay laga xoreeyo inaad gacan ka geysataan oo dhaqaale ku taageertaan oo adin iyo afba ku taageertaan arrintaas waxay tahay qodobka koowaad muhiimka shalaan niri warroor aan iska saarno shalaan haddaan leenahay shabaab aan iska saarno haddaynan nidaam dimuqraadiya dhisanna maalinba mid kale oo istibdaadoo saa u qabsadaa soo baxaya marka waxaa la rabaa markan dambe tala dambe inaan dad loo dhiibin ee shacabka lagu celiyo marka dimuqraadiyada in gacan la siiyo Puntland hadda way bilowday 3 degmay ka dhacday degmooyinka hareyna waxaan rajaynayaa hadda guddiga doorashadu shaqo fiican buu wadaa wuxuu hadda dhameeyay polling stationka meelihii laga codeyn lahaa
bishaan gudaheed waxaa bilaaban doona registrationkii dadkii codayn lahaa horaanta bisha sanadka soo socda waxaa dhici doona 37 degmo ee hadda la qorsheeyay ayaa doorashadii qof iyo coda ka dhici doonta waxaa dhismi doona golayaal degaan oo dadku soo doortay waxaa halkaa ka soo bixi doona nidaamka axsaabta badan ee Puntland yeelan doonto marka ugu horeysa markii la arkay saddexda degmo waxaad ogtihiin dawladda galmudug guddigii doorashada iyo xeerkii doorashada waa ansixiyeen koonfur galbeed hadda waa ku jirtaa waan u rajeynayaa Jubbaland iyo Hirshabelle inay galaan marka waxaan u rajeynayaa isbedeladaas Soomaaliya hadda ka dhacay waxaad ogtihiin Puntland nidaamka isteedyada hadda jiray hormuud u ahayd nidaamka federaalka gacan ka soo geysatay isteedyada wada dhismay gacan ku lahayd maantana waxay rabtaa inay hormuud ugu noqoto in nidaamka qof iyo cod iyadu ay hadda ay tijaabisay inay dhameystirto nidaamka siyaasiga uu noqdo sida midka universalka ee caalamku axsaabta badan ay ku tartamayso oo aysan noqon nin baa yimid nin baa tagay siyaasadda markay xisbiyo noqoto mucaaradka saxda markaa soo baxaya oo sharciga ah hadda waxa socdo waa iska nixtooxsi aan macno badan lahayn oo waxa la arkaysaa maanta waa kula joogaa birri haddana waa ka soo horjeeda waxa macno yeelan mayso laakiin hadii axsaab la yaqaano xisbiga mowqifkiisa iyo maaragtay mabaadidiisa way qorantahay waa la arkayaa kamana leexleexan doona hadii la hayno dardaarankii ugu dambeeyay waxa weeye dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha runtii eed ma leh maxaa yeelay madaxdii ka horreysay wada khaldan mar walba u jeexda inay iyaga ku daydaanna waa shay dabiici ah dabcan isbedelku waxa la rabaa in siyaasiyiinta iyo madaxda iyo hoggaanka uu ka yimaado taasa asal ah laakiin mararka qaarkood haddii hoggaanku uu garan waayo waxa la rabaa in cidda markaa la xukumayo ama bulshada waa saas adduunku waxa ka dhaca bulshada isbedelku ka yimaada marka 30 sano in odayaal iyo dad kooban oo siyaasiyiin oo danahooda ilaashanayo oo qabaa'il laga warsugo oo maalintuu rabana uu danihiisa kugu gaarana wax kala ka shaqeeyo runtii waxa la rabaa cidda victimka u ah ama u dhibaataysan waa dhalinyaradeenna iyo ubaxeena soo koraya mustaqbalkeena siyaasiga runtii anigu waxaan rajaynayaa oo aan hadda u taagnahay nidaamka siyaasiga ee Soomaaliya inaan wax ka bedelo intii hadda aan xilka hayay ama aan ku jirana waxaan ku dadaalay waxyaabo aan horay dadku ugu fakari jirin inaan Puntland tuso inay dadku ku fakiraan Soomaaliya wasaad ogtihiin 60 sano ay xor tahay weli mashruucyada kaabayaasha la yiraahdo ama jidadka ama dekedaha oo dawlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed ay wax ka qabteen weligeed ma dhicin Puntland hadda ugu horeysay dekeda Garaacada la dhisay waa maalgelin Soomaaliyeed ajnabi kuma jiro hal jid waxa laga dhaxlay dawladda hore jidka Boosaaso inta aan ku leenahay Soomaaliya oo dhan isku xiri jiray ilaa Xamar ilaa Kismaayo inta dhaqnayd waxay ahayd inta Boosaaso iyo gaalkacyo u dhaxsay waliba inta Boosaaso iyo Garow oo kii Talyaaniga oo damaar roona kii Shiinaysku 50 sano kor u dhaafay oo baaba'o laga soo bilaabo Boosaaso ilaa gaalkacyo jidkaas socda oo ilaa hadda lacagta ku baxday kor u dhaaftay 20 milyan mujtamaca dawliga in yaroo kooban oo 6 milyan ku leeyahay inta kaleeto dawladda Puntland canshuurtii laga qaadaa lagu dhisay qaybna dhisantahay qaybna socotaa qorsheeda socda dekeda waad ogtihiin dawladda iyo shacabkeeda isugu tago oo dhisantay inta markii la abuuray Puntland waxa isha ku soo eegaya in dad wax qabsanaya in wax la qabto u baahan laakiin ogaada hay'adaha iyo dawladuhu waxay baxshaan waa waxyaabo kooban waxa anaga u baahannahay waxa weeye foreign direct investment wax la ganacsato inay soo gasho ganacsatadu ma imaanaysa haddaysan rule of law arag nidaam dawli ah oo sax ah waxa naga hortaagan waa qof iyo cod inaan galno maxaa yeelay waxa la rabaa nidaam la isku haleyn karo oo la xisaabtami karo la rabaa waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo mashruucaas inay gacan ka geystaan cidda diidan oo u maleynaysa inuu nidaamkan hadda aan ku soconay weligiis daa'in ahaanayo wuxuu ka hor imaanayaa shuruucda iyo qawaaniinta dawladnimo ee aan leenahay
puntland maalintii la aasaasay ayaa waxaa lagu qoray 3 sano gudahood nidaamka xisbiyada badan lagu sameeyo duruufo kala duwan oo soo maray ayaa dib u dhigay duruuftii shalay jirtay maanta ma jirto midda maanta jirtana berri ma jiri doonto marka waxaan rajaynayaa idinkoo mahadsan waqtiga iyo daalka iyo dib u dhaca aan ka cudur daaranayo u mahad celinaya intii soo qaban qaabisay inta ka soo qayb gashay waxaan rajaynayaa fursadaas Soomaaliya idinka in sugaysaa codkiina u baahan tahay taageeradiina u baahan tahay maxaa yeelay inta dibadda joogta iyo inta gudaha joogta waa mid qura Soomaalidu waxaan rajaynayaa inaa codkiina ku biirisaan in dadka Soomaaliyeed isbedel siyaasi oo ku dhaco oo nidaamka axsaabta badan ay hirgasho waxaan rajaynayaa Puntland inay guuleysato Soomaaliya inay guuleysato labada qodob oo maanta Soomaali u baahan inay ka shaqeyso ama Puntland u baahan waxa weeye amniga iyo la dagaalanka argixisada iyo horumarinta nidaamka siyaasiga oo qof iyo cod labadaas deegaanada kaleeto ee Soomaaliyeed ee hadda duruufta gaar kale oo hadda aanan ka sheekeyn karin qof iyo cod oo nabaddu ay wili hooseyso oo cadawga uu fadhiyo waxaan gacan u baahanay kulligeed inaan isugu geeyno inaan ka dulqaadno nidaamkaas runtii dhibaatada ku ah bulshada Soomaaliyeed maxaa yeelay waxay u diideen xorriyadii oo dhan bal qarnigan la joogo xataa waxa lagu leeyahay teleefoonadan hadda ay wataan xataa looma ogolaanayo deegaanada haystaan smartphone-ka wax kale iska daaya ya iskuulle kama jiraan cusbitaalle kama jiraan gabdhuhu meelay ku umulaan ma leh nolol kadeed ah oo xakaar ah iyo qarax iyo dil joogta maalin walba lagu saaray dadkiina way iska eeganayaan runtii siyaasiyiinta hadda ku dhiiratay oo hormuudka dawladda iyo madaxweynuhu federaalka u yihiin iyo dadka siyaasiyiinta deegaanadoodii ka soo jeeday aad arkaysaan maalin walba iyagoo taagan oo maartay waxay u baahan yihiin dhiirigelin waxay u baahan yihiin in garab la siiyo waxay u baahan yihiin in gacan laga geysto amnigu Soomaaliya kaliya ma leh madaxda Kenya runtii aan uga mahad celinayo markii aan garacad aan fureynay waxa ahayd garacad deked ku soo korodhay geeska Afrika oo waliba nooceedu aan hore loo arag sida hadda halka sheegay waxa ka soo qayb galay madaxda Kenya madaxda Ethiopia wasiirka aadan ducaale iyo wafdi uu wataa runtii noo yimid oo uga mahad celinayna safarka ay yimaadeen intii hadda aan joogay madaxda Kenya oo aan la kulmay waxa naga dhaxeeyay geeska Afrika dhaqaalaheena iyo nolosheena iyo amnigeena waa isku xiran marka in laga wada shaqeeyo la rabo inay qolo nabad ahaato qolona colaad ku jirto oo darisna ay yihiin suuragal ma waa la isgaaraya marka waxaan rabnaa nabadaas iyo wanaagaas in guud ahaan dawladaha hadda geeska Afrika oo isku taxan oo waliba dadka Soomaaliyeed ba xuduudaha la wadaaga Soomaaliya waa degan marka mas'uuliyad gaar ah saaran xuduudda Ethiopia Soomaaliya waa degan xuduudda Kenya Soomaaliya waa degan mushkiladuna waa Soomaali cid wax ka qaban karta waa Soomaali geeska Afrika marka nabadeeda annaga noo laga fadhiyaa waan rajaynayaa inaan ka wada shaqeyno si guud isagoo nin walba mas'uuliyadda uu haya gudanaya waxaan idin rajaynayaa horumar deganaansho isbedelka halka ka dhacay runtii wuxuu muujiyay Afrika qaangaar inay tahay Kenya waad ogtihiin oo doorashooyinku waa laga baqaa Soomaali kaliya kama baqin hadda Puntland markii doorasho la maqlo dad qaylqaylnay waa maqasha baashu cabsi iska leedahay halka waa laga qaylin jiray waa laga baqi jiray laakiin hadda tii waagu dhow dhacday rule of law waa aragteen oo shacabka Kenya waxay muujiyeen ilbaxnimo danahooda garteen nin walba qofku rabiyo u cadeeyay waxyaabaha cajiibka oo teknolojiyadu keento waxa weeye anigoo garow jooga waxaan la soconayay counting-ka codkii dhacaba ya linki waa ku xirnaa Soomaha waa la arkay midda hadda Puntland aan ka ridayno maxaa la yaabay hadda tii saddexda degmood ka dhacday ururka aniga aan madaxda ka ahaa laba degmo oo kamid ah waa la iga guuleystay diyaar waan ku qanacsanahay waxa aan raadinayo maaha in annaga waxalno aniga ururkayga waxaan raadinayaa waxa weeye in system hirgalo marka dadka systemka ka baqayana waa shay dabiici oo de meel walba soo maray maalba meel ba joogtaa laakiin dadka Puntland waxa lagu yaqaan inay mar walba wax ku dhiirradaan waxaan dadka aqoon hadda awal Soomaaliland dhigi jirnay hormuuda u nahay
maalintii dhow markii la yiri deked baa dad dhistaan dadkii dharaabayaa hadda waa kare dawlad hadda Afrika ku taalo oo deked iyadu ay dhisatay ma jirtaa ma jirto deked kasta waxa weeye investment iyo loan waliba loan ma badna xataa grant baa loogu sameeyaa dawladda oo sameeyaa dad iyagu wax dhisanaya haddii 30 sano aan dalka adduunka ka maqneen oo dawladana maal gelin aan weyn ma fadhinaynaa marka baahidu iyada keenta fakarka iyo horumarka haddaan taa garanayno inaan dawlad kala dameyn leh dhisano oo nidaam ku fadhida waxba nooma noqonaysa hadii ilaahayno waa rajaynayaa arrimahaas inaan ka wada shaqeyno waxaan rajaynayaa inta halka fadhida hadda si guud baan u hadlayaa hadda ururka ka baan u hadlayaa waxa la rabaa inaad maaragtay farriisan baa dimuqraadiyaddu waa saas oo maaha waagi hore odayaasha meelo kale wax laga keenkeeni jiray laakiin hadda one man ufo dadka lagu gaargaaro marka ganacsatada waxaan rabaa wakiilana waa halka waa ku leenahay farriisan aan doorashada uga qayb galnana waa inaga rabnaa waxaan rabnaa hadda ka bacdi sida kii xataa meesha uu ka soo gal dhaqaalaha in la ogaadaan rabnaa adduunku saas u dhaqmaa Soomaa bahashan hoose oo intaas meel ka timid aan la aqoon hadhow baaragtay ninkii madaxda qolal dhays hadda waxa soo baxay milkiilayaal waa ku maalgeliye mashaakil badan ajir hore loo shaqeyn karo marka bahasha inaan furnaan rabnaa nin walba $2 ku darsado oo hadhow girgirka qabsado hadda $10 iyo codkaaga ku darsatid yaa ka xiga hadhow ma nin baa ku dhigi kara anaa ka xiga ya bahashaas la rabaa waxa la rabaa hadda tii uu gudoomiyaha ka sheekeynay dam jadiid iyo dam fulaan iyo meesha ay ka baxaan la rabaa dawladnimada dadka rabnaan ku celino anaana hormuud ah taas bilaabay hadii la hayno waana arki doontaan hadii la hayno waxna waa ka aragteen dabcan isbedelada hadda Puntland ka dhacay waxay u yihiin rasiid isbedelada Soomaaliya ka dhacay arinta oo hadda mudug iyo gobolka mudug dabcan in laba state ay hal magaalo ku yaalaan maaha moogtahay laba dal baa hal magaalo ku yaala adduunka soo saas maaha laba dal baa hal magaalo ku yaala oo jidku kala bara stateku laba state inay noqdaan laakiin laba state oo colaad la isugu dhigay oo aanan dabka kala qaadan karin runtii sax ma ahayn runtii dawladda Puntland iyo Galmudug shaqo badan baa laga qabtay maanta waxaan ku faraxsanahay ilaa 2 habeenimo 2 habeenimo in magaalada Gaalkacyo labada dhinac la isaga socdo isbedel weyn ku dhacay Galmudug xataa waliba xogaa dib isu dhigi jirtay hadda dabaqyada hadda xagga u badan ilaa waa ka ilbaxsiin meelaha qaybtooda dhinacyada ugu fiican yihiin dadku waa kala fiican yahay maqaayadaha iyo xagga ugu fiican xagga la aada shaqooyinka waa lagu kala fiican yahay ceebna maaha ila tartabaa la rabaa raggaan xagga jira waxyaabo badan oo lagu fiican yahay jirta inaa qarno way marka waa la isweydaarsanaya midba midku wuxuu ku fiican yahay kale u gudbinaya marka waxaan rajaynayaa in wax la isku darsado dekeda hadda garacad Soomaalina ma aha kaliya ilaa Ethiopia wad ogtihiin oo maalinta dhaweydna waxa la dhagax dhigay jidka isku xiri doona garacad Gaalkacyo Galdogob oo geli doona hadii Ilaahay noo Ethiopia madaxweynihii dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa xaggan oo nagu soo boqod haddana caawin waa isla joognay runtii shaqo fiican baa ka socota waan rajaynayno in isbedel ka dhaco dawladda Kenya waxaan rajaynaynaa wax badan oo ganacsi ah inay dhex maraan isbedelkan cusub oo hadda yimid Soomaalida inuu khayr badan u noqon doonaan rajaynayaa maxaa yeelay banaan taag weligan ahaan mayno Soomaalidu dhaqana duruufihii kala duwan aan ka baranay baa iska jira laakiin ilbaxnimada ummadaha kale inaan wax kaga dayanaa u baahannahay si aan horumar u gaarno dalkii Soomaaliyeed iyo geeska Afrika oo Soomaalidu sugaya Ilaahay ha naga dhigo kuwii mas'uuliyadooda ka soo baxa waajibkooda guta danahooda garta idinkan waxaan idin rajaynayaa horumar iyo dhaqaale iyo deganaansho iyo isku duubnaan wadajir baa wax lagu qabsan karaa kala qoqob iyo kala qaybsanaan iyo qabyaalad wax ma tari doonto aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh